Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu ka horbaydayo qaxooti badan oo ka gudbi doona xadka ay la leeyihiin Yurub. Tiradan ayaa la rajeynayaa inay gaadho maalmaha soo aadan ku dhawaad 30,000 oo qof, sida uu sheegay madaxweynaha. khudbad uu madaxweyne Erdogan u jeediyay xildhibaanada ka tirsan xisbigiisa ayuu ku sheegay in dawladda Suuriya ay ka qoomameyn doonto dilkii ciidamadiisa. dalka Greegana wuxuu sheegay inuu xadkiisa uu ka xidhay kumanaan qaxooti oo si sharci darro ah uga soo gudbay dhinaca Turkiga, kuwaas oo ka soo geli lahaa xuduudda uu la wadaaga dalka Turkiga, iyagoo sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala cayriyay dadka soo buux dhaafiyay xuduudda. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in qaxooti gaaraya 18,000 oo qof ay ka gudbeen xadka dalkiisa iyagoo galay dalal kale oo ku yaala qaaradda Yurub kadib markii uu albaabada u furay qaxootiga ku nool dalkaas. Tirada dadka galay qaaradda Yurub ayaa laga yaabaa inay gaarto ilaa 30,000 oo ruux maalmaha soo socda. Dawladda Turkiga ma awoodo inay qaxooti maalin walba ka soo cararaya dagaalka sokeeye ee Syria ay hayso, ayuu yiri. Dawladda Greega ayaa sheegtay inay ka hortagtay dibna u celisay kumanaan qaxooti ah oo inay si sharci darro ah uga gudbaan xadka Turkiga. ciidamada Greega ayaa isticmaalay sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala cayriso dadkan doonaya inay ka soo gudbaan xadka Turkiga uu la leeyahay dalkaas. go'aanka Turkiga ayaa yimid kadib markii ciidamada Turkiga oo ku sugnaa waqooyiga Syria la weeraray. ugu yaraan 33 ciidamada Turkiga ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday Idlib oo ah gobolka ugu dambeeyay ee kooxaha mucaaradka Syria gacantooda ku haray. Turkiga ayaa tallaabo argoosi ah qaaday isagoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku duqeeyay ciidamada Syria, waxaana weerarkaasi lagu dilay 26 askari oo Syrian ah. Syria oo taageero ka helaysa Ruushka ayaa doonaysa inay dib ula wareegto Idlib oo ay ku sugan yihiin kooxaha jihaadiyiinta iyo kuwa mucaaradka oo Turkiga taageerayo. Turkiga ayaa waxa uu martigeliyay ilaa 3,700,000 oo qaxooti Syrian ah iyo waliba qaar kale oo ka soo qaxay dalka Afghanistan, balse waxa uu hore u joojiyay inay u gudbaan dalalka Yurubta kale kadib markii heshiis gargaar ay bixinayaan dalalka Midowga Yurub uu la galay. balse madaxweynaha Erdogan ayaa ku eedeeyay wadamada Midowga Yurub inaysan ka soo bixin ballantii ay la galeen. go'aanka uu Turkigu qaatay ayaa ku soo beegmaya xilli Turkiga ku dhawaad 33 askari waqooyiga Suuriya ee gobolka Idlib ay ugu dileen ciidamada Suuriya. madaxweyne Erdogan oo xildhibaanada baarlamaanka ka tirsan ee xisbigiisa la hadlayay waxa uu sheegay inuu madaxweyne Putin u weydiistay Ruushka inuu danta Turkiga kaga leeyahay gobolka Idlib uu ka leexdo si Turkiga keligii u wajaha dawladda Suuriya. labada hogaamiye oo qadka telefoon ku wada hadlay kadib markii 33 askari oo Turkiga duqeyn dhinaca cirka ah lagaga dilay gobolka Idlib, wuxuu dilka askarta Turkiga dusha ka saaray xogaga dawladda Dimashq ee garabsanaya Ruushka. wuxuu sidoo kale madaxweyne Erdogan sheegay inuu albaabada u furay dhammaan qaxootiga doonaya inay qaaradda Yurub u tallaabaan dalkiisana oo wixii hadda ka dambeeya uu u dulqaadan doonin qaxooti tiro badan inay ku soo qulqulaan. madaxweyne Erdogan waxa kale oo uu sheegay in albaabada qaxootiga Yurub u tallaabayo uu furay maalmaha soo socdana inay sii furnaan doonaan maadaama Turkiga iyo Yurub heshiiskii Brussels ku dhaxmaray ee loogu ballan qaaday Turkiga inay dhaqaale lagu taageerayo aysan u fulin sidii la rabay. Ruushka iyo Turkiga ayaa dhinacyada iskaga soo horjeeda dagaalka sokeeye ee kala taageeray. Turkiga oo si cad uga soo horjeestay xukuumadda Bashar al-Assad isla markaana taageeray kooxaha hubeysan ee dawladda Suuriya ka soo horjeeda. duqeymo uu Turkiga ka geystay dalka Syria waxa uu ku dilay in ka badan 26 askari oo Syrian ah, sidoo kale isagoo ku burburiyay saanad ciidan oo aad u fara badan. duqeymahan oo gaarayay ilaa 120 duqeyn ayaa waxa caddeyn u tahay awoodda Turkiga ee ciidan iyo mid teknoolajiyad. xaaladda bariga dhexe ayaa muddooyinkii dambe isu bedeshay meel ay quwadaha caalamka awoodooda ku soo bandhigaan iyagoo ay quwadahan la kala safanayaan xoogga iska soo horjeeda, taas oo loo sababeeyay hardan siyaasadeed oo u dhexeeya dawladaha ugu tunka weyn caalamka.